xajaaj baa marka wiilkii hadal ku bilaabay oo wuxuu ku yiri hadalkii hadda aad lahayd yaad ula jeeday salaanti gaarka ahayd oo hebel baan salaamaya yaad ula jeeday wuxuu ku yiri waxaan ula jeeday amiirul mu'miniin baan ula jeedo Ali bin Abi Talib baan ka waday Ali bin Abi Talib iyo asxaabtiisii baan ka waday adigana wuxuu yiri xajaajow hadii lagu dhihi lahaa salaanta noocaasi qof salaam yaad salaami lahayd xajaaj bin Yuusuf al-Thaqafi wuxuu yiri Abdulmalik ibn Marwan baan salaami lahaa oo Abdulmalik markaasi waa reer bani Umayya waana boqorka markaa talinayo xajaaj uu ka amar qaato wiilkii yaraa wuxuu yiri ma Abdulmalik faajirka ah lacnada Allah ku dhacday tii malaa'ikta iyo tii dadkaba ku dhacday markaas ayaa salaamaysa xajaaj wuxuu ku yiri maxaad u tiri Abdulmalik faajir maxaad u tiri wuxuu yiri khalad yar uu galay baa muslimiin badan dartiisa loo baabi'iyay dadkii meesha fadhiyay wasiiradii iyo dadkii xajaaj la joogay xilka meesha qayb ka hayay qaar kamid ah ayaa waxay yiraahdeen xajaajow wiilkan dil maxaa dhacay taacadii amiirkii in la adeeco rabay wuu ka baxay jamaacadii in lagu dhex jiro la rabayna wuu ka dhex baxay oo dadkii isku duubnaa banaanka ayuu ka taagan yahay Abdulmalik ibn Marwan wuu aflagaadeeyay marka in la dilo ayaan ku xukunnay wiilkii yaraa wuxuu yiri xajaajow dadkan kula fadhiya adag u yaal waa dad jaahiliina waxa aan ahay ma fahmayaan xajaaj baa dadkii wuxuu ku yiri aamusa ani isaga isu keendaaya xajaaj baa wiilkii wuxuu weydiiyay wuxuu ku yiri ma garanaysaa walaalkay xajaaj waxa walaal la ahaa nin sidiisa kale u dhib badan oo Yaman mas'uul ka ah marka wuxuu yiri ma garanaysaa walaalkay wiilkii yaraa wuxuu yiri haa walaalka waa Fircoon markuu nabi Muuse u yimid iyo Haaruun wada socdo si arshigii ugu fadhiyay isagas ay ka uga qaadaan dadkii la fadhiyay buu la tashaday adigana Fircoon baa walaal kula oo kuwan kula fadhiyay ayaa la tashanaysaa xajaaj wuxuu yiri qoorta ka gooya marba hadii Fircoon la sheegayba wuxuu yiri qoorta ka gooya ruqaashi nin la yiraahdo waa xajaaj ka agdhow wasiirada ugu dhow ah baa intuu xoogaa wiilka yaraa u naxay buu isiri wiilka yar hadii qoorta laga gooyo da'dan yar waa ilmo yare bal badbaadi markaas wuxuu yiri amiirul mu'miniin